qofka oo naftiisa ka helaa qaabkiisana ku qancaa waa tilmaamta liidashada lagu garto. sirta nolosha ma aha inaad samayso waxa aad jeceshahay, balse waa inaad jeceshahay waxa aad qabanayso. qaraabada iyo ehelka cunto iyo cabitaan la wadaag, laakiin abidkaa shaqo ha la wadaagin. karaamada iyo weynida qofka waxaa lagu qiyaasaa ilaa xadka uu diyaar u yahay inuu u naxariisto kuwa xaqiisa qalad ka gala. haddii aad caado ka dhigato inaad ka carooto wax kasta oo ku raali yelin waaya, abidkaa nolosha ku xasili maysid. haddii aad doonto qayrka mijo u noqo, laakiin sharta madaxa u noqon. marka aad walaalkaa ka caawiso inuu buur fuulo, waxa aad ogaataa in aad tahay qofka ugu dhow ee ku xiga isaga hanashada buurtaas. qofka oo carooda marka la canaanto waa astaan muujinaysa inuu mudnaa canaanta. marka aad taariikhda dib u raacdo, waxa aad ogaanaysaa runtu mar walba tahay mid aan la faafin. la fahayso dadka caqliga badan, xitaa haddii ay yihiin cadowgaaga, waayo caqliga ayuu la hadlaa. cadowgaaga mar walba ka feejigno, laakiin saaxiiblamoodka badan ee qofka aad la saaxiibayso kun jeer ka feejigno. imisay dhacday in saaxiib cadow isu rogay, uu xog ogaannimo boqonta ku jaray ruuxii aaminay. imisoo lacag iyo hanti ururiyey nin aan calfanaynin. imisaa qof cunay xoole iyo hanti aanu ururin. u sabir xaasidkaaga, waayo sabarkaaga ayaa dilaya. soo ma ogid in haddii uu dabku waayo wax uu cuno, isagaa is cuno aakhirka. qofka xoolihiisa u foofiya kaymaha habar dugaaga hoyga u ah ee ilaashan waaya, iyaga ayaa ka damaan qaadaya ilaahdiisa. sharafta iyo karaamada dhib la'aan kuma waaraan ilaa dhiig lagu sadaqeeyo. geesinimadu waa qofka oo cabsidiisa xakameeya, ee ma aha cabsida oo qofka dib guurta. geesinimadu xoog ma aha, waayo kaneecaduba waxay ka dejisaa sanka libaaxa.